In ka badan 60,000 oo qof oo Soomaali ah oo u badan haween iyo carruur ayaa ka cararay colaadda ka oogan gobolka Sool, iyagoo gaaray deegaanada gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Hay'adda u qaabilsan Qaramada Midoobay arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ka badan kala badh dadkaasi ay Itoobiya gaareen horraantii toddobaadkan. Dadkan ka qaxay colaadda Laascaanood oo daal, diif iyo qaracan uu ka muuqdo ayaa gaaray gudaha Itoobiya iyagoo kaliya sita alaabo gacan qabsi ah oo ay awoodeen inay qaataan. Haween ka mid ah dadkaasi oo u warramay shaqaalaha UNHCR ayaa sheegay inay alaabahoodii muhiimka ahaa ay iska iibiyeen si ay uga dhigtaan jiscin isagana bixiyaan qarashka gaadiidkii ay soo raaceen. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa hay'adaha u sheegay inay colaadda Laascaanood ay ku waayeen qaar ka mid ah eheladooda, kuwa kalena ay kala kulmeen intii ay dagaalladu socdeen. Dadkaasi habqanka ah ee colaadda ka cararay ayaa la dejiyay 13 barood oo ku meel gaar ah oo ku yaalla magaalooyinka Booq, Galmudug iyo Doonad oo ku yaalla gobolka Doolow ee dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Inkastoo ay ku yaallaan dhul fog oo dadku ay ku yar yihiin, haddana dadka gobolka Doolow ayaa soo dhoweeyay qaxootiga, iyagoo la wadaagaan wixii ay heli kareen. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in xaaladda dadkaasi qaxootiga ah ay ka sii darayso maadaama qiyaastii maalin kasta 1,000 qof oo qaxooti ah ay u tallaabaan dhinaca Itoobiya.